maamulka sare ee Dahabshiil Bank iyo Dahabshiil Group ayaa maanta kulan ballaadhan la yeeshay wakiilo ka socday xafiiska arrimaha dibadda barwaaqa sooranka iyo horumarinta ee dowladda UK oo ay ka mid yihiin Safiir Charles King iyo Safiir Laos Hong Kong. kulankan ayaa diiradda lagu saaray doorka ay shirkadaha Soomaalida hogaamiya ee waaweyn sida Dahabshiil ay ku leeyihiin kobcinta dhaqaalaha Geeska Afrika. qodobada lagaga hadlay kale waxaa ka mid ahaa ballaadhinta fursadaha maalgashi ee ganacsiga yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka, abuurista shaqooyinka iyo dhiirigelinta maalgashiga qurba joogta. shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah bixiyayaasha adeegga maaliyadeed ee ugu waaweyn gobolka ayaa mar kale adkaysay sida ay uga go'an tahay in la xoojiyo iskaashi caalami ah oo kor u qaadaya horumar waara iyo fursado dhaqaale oo loo siman yahay. maamulaha shirkadaha Dahabshiil Group Cabdirashiid Ducaale ayaa sheegay inuu kulankani ka turjumayo dadaalada joogtada ah ee lagu midaynayo hal-abuurka ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo yoolka horumarineed ee caalamka, gaar ahaana dalalka nugul iyo suuqyada soo koraya. dowladda UK iyadoo loo sii marayo FCDO waxay sii wadaa wada shaqaynta ay la leedahay daneeyayaasha gobolka iyadoo qayb ka ah istaraatiijiyadeeda guud ee lagu taageerayo xasiloonida, adkaysiga dhaqaale iyo iskaashi goboleed oo waara.